wafdigii ballaadhnaa oo hogaaminayay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay degmada Qorlugud ee gobolka Buuhoodle waxaana wafdigan dhinaca magaalada Buuhoodle kaga soo darsamay wafdi kale oo hogaaminayo wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Salebaan Ciise Axmed Xaglatos iyo howlgala shaqo maalmihii u dambeeyay ku joogay deegaanka Buuhoodle madaxweynaha Soomaaliland ayaa socod ku dhaxmaray shacabka isagoo gacan qaadaya madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa salaan sharaf ka qaatay cutub ka tirsan ciidanka qaranka ee ku sugan Qorlugud مدن مدحوينه waxa halkan diyaar kuuga cutub ka tirsan ciidanka qaranka ee Jidda Qorlugud mudane madaxweyne ku soo dhawow stop intaasi kadibna waxa si toos ah bilaabmay khudbadihii kala duwanaa iyadoona ay maamulka degmada Qorlugud duqeyda iyo waxgaradka iyo waliba xildhibaan xariir oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ay gacmo furan ku soo dhaweeyeen wafdigan waxaana ay uga mahadnaqeen xukuumadda Soomaaliland oo garwadeenka ka yahay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo wax qabadka ay ka hirgelisay Qorlugud arintaas maanta waxay oo tahay baal dahab ay maanta oo tahay iyo taariikh ay oo tahay mudane madaxweyne waxaan ugu soo dhaweynaa degmada Qorlugud aad ugu faraxsanahay wax qabadka guud iyo wax qabadka gaar ahaaneed ee noo qarsoomay ee aad noo qabatay aad iyo aad baan uga mahadcelinaa waxay u yihiin in ay mar labaad iyo mar saddexaadba codkooda iyo taageeradoodaba ay ku bixiyaan si hagar la'aan ah taas waa taa magaalada sida qarannimada leh ay u wareegayaan ummadooda madaxweynaha iyo raggiisa ugu shaqaynayo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waana u mahadnaqaynaa annaguna sidaa horeba sheegay waxaanu nahay taageerayaashii xusbiga iyo taageerayaashii dawladda iyo ma garanaysaa baalashii ay dawladdu ku doonaysay baanu nahay waxaa nagaga talagelaysaa inaan madaxweyne kugu soo dhaweynaa adiyo dawladdaadaba gacmo furan qalbi fayo iyo ma garanaysaa jacayl siyaadaha baanu halkan dawladda u haynaa waanu ku soo dhaweynaa adiyo dawladdaadaba waxaan ku soo koobaynaa hadalkayga wixii aad noo qabatay waanu kaga mahadnaqaynaa waxaan maantana ka sugaynaa wixii hore wax la mid ah maanta noo qabato noo xidhibto wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Ali Maxamed Waran Cadde iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Salebaan Ciise Axmed Xaglatos ayaa ka hadlay munaasabaddan waxyaabaha loo baahan yahay in la qabto runtii taas uu soo maray dhammaan bari ilaa galbeed socodka dheer ee muddada wiiga imika ku jiray waxaase ilaahay mahadiya degmada Qorlugud markuu u hadlayay duqa magaalada ama gudoomiyaha degmadu wuxuu sheegay mashaariicdii loo qabtay dhammaantood inay sidoodu u fuleen maantana wixii dambe laydin kordhinayo ee loo arko baahida degmada ayaa iyadana madaxweynuhu inuu dhagax dhigo oo eego ayuu diyaar u yahay aad iyo aadna waa u mahadsantihiin sida qiimaha badan ee u soo dhawaysan madaxweynaha waana idinka mahadcelinaynaa mudane madaxweyne waxaan marka ugu horeysa rabaa deegaankaygii weeye deegaankani waan kugu soo dhaweynayaa madaxweyne ku soo dhawow anagu bilaabanno nabadgelyada aynu ka wada shaqayno boqolkiiba boqol reer Buuhoodle nabadgelyay diyaar u yihiin reer Qorlugudna waan ogahay diyaar baynu isu nahay isdhexmarkii iyo kalsoonidii iyo wada dhalashadii iyo kalsoonidii aynu soo celinno oo aynu nabadda ka shaqayno si horumar aynu u gaadhno si aynu dadka wax ula qabsanno si aynu waxqabadka socdo ula jaan qaadno aynu isu nimaadno madaxweyne adiguna nabadda noogu ducee madaxweynaha Soomaaliland Dr. Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa sheegay in safarkoodu ku qatamo kurgalka xaaladaha nololeed horumarineed iyo baahiyeed ee ka jira deegaanada Soomaaliland si ay xog uga ogaadaan madaxweynaha reer Qorlugud sida qiimaha iyo qaayada halka noogu soo dhaweeyay aad iyo aad baan ka mahadnaqayaa aniga waftigeena socdaba sida sharafta iyo qiimaha noogu soo dhaweyseen sidii caadada ahayd aad iyo aad baan ka mahadnaqaynaa waxa weeye dalka waxaan u maraynaa inaan xoogaal u noqono xaaladda uu ku sugan yahay
meel waliba iyo gobol waliba iyo degaan waliba midda kale inaanu dhegaysanno tabashooyinka dadweynaha waxay tirsanayaan waxay qabsadeen iyo waxay u baahan yihiin waxaanu dalka u barina weeye halka waa nooga waranteen laakiin mar walba waanu idinku faraxsannahay sida qiimaha leh aad noogu soo dhoweyseen ee niyad samada aad noogu soo dhoweyseen baahidii halka laga sheegay waanu tixgelin doonaa waanu qorannay waanu la soconaynaa wixii aanu ka qaban karno iyo wixii aanu ka tari karrana meel walba waa ka taranaa insha allahu tacaala waxaanu dowladda ku nahay taa weeye inaynu dadka dhegaysanno baahidooda dhegaysanno waxay tabanayaan iyo waxay tirsanayaan dhegaysanno waa waajib iyo xil la saara weeye taana waanu idin dhegaysanay insha allahu tacaala wixii aanu wax ka qaban karno waanu ka qaban marka markale aan ku cesho aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa sida qiimaha iyo qaalaha aad noo soo dhoweyseen anigii waftigeela socdaba assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wa shukran jasiila ilaa khayr idin siiyo madaxweynaha Soomaaliland Dr. Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo iyo wafdigan ballaadhan oo hogaaminayo ayaa deegaan kasta oo ay soo cagadhigtaan ba ay kala kulmayaan soo dhaweyn qiimaheedu sareyso Cabsaaq Faarax Cabdilaahi TV-ga qaranka Soomaaliland Burco.